bismillaah kulanti wacan ku soo dhawaada mar kale mowduuc ku saabsan ardayga iyo habka uu noqon karo arday wanaagsan ama arday maskax leh. Maanta waxaa noo marti ah Cusmaan Rooble oo ah arday reer Jabuuti ah oo firfircoon. Ku soo dhawow janalka Galas Podcast. waa mahadsantiin waan dhawaay sida wacan waqtigiina aad heshiiseen aad iyo aad ayaan idinka mahad celinaya. Intaan gelin mowduuca waa kuma Cusmaan Rooble. anigoo ah Cusmaan Rooble Warsame oo ah arday ka qalin jebiyey jaamacadda Jabuuti 2021 haddana ku sugan Turkiga gaar ahaan magaalada Jankari oo ka barta master haddana wada master 2. Haddii aan guda galno mowduuca, su-aasha koowaad waxay tahay noo qeex bal waa maxay arday? Arday waa qof wax baranaya, waqtigiisa siinaya, u soo baxaya, subax u soo kalahaya, noloshiisa siinaya, lacag ku bixinaya, noloshiisa dhanba ka dhigaya tacliin amba ay dadkiisu ay wax ugu talagalayaan inuu wax barto. Haddaba haddaan fahamnay qeexitaanka guud ee ardayga, su-aasha labaad waxay dul taagaysaa oo tahay isa qaybood bay yihiin ardaydu. ardayda saddex baa loo qaybiyaa. ta horeysa waxa weeye qaabku ardayga wax ku baranayo. ta labaad waxa weeyaan soo jeedkiisa ama maskaxdiisa suu cashirka ugu soo jeedo. ta saddexaadna waxa weeyaan qaabku wax u fahmayo. ta horeysa haddii aan galo ardaygu qaabku wax ku baranayo, qaabku ardaygu wax ku baranayo waqtiyadii hore waxay ahayd in ardayga iyo macallinku ay soo yimaadeen. hadda waa maadaama oo waqti cusub la joogo, waxyaabo kale ama siyaabo kale uu ardaygu wax ku barto ayaa soo cusboonaaday. haddii aan isla garanay inuu ardaygu macallinkiisa isagoo horjooga wax baranayo, waxaase kaloo jirta ardaygu inuu qaab online wax ku barto amba uu ku barto qaab fiidiyo duuban loo soo diro oo xagga wax ka barto. talabaad haddii aan isdul taagno waxa weeye ardayga soo jeedkiisa. ardayga soo jeedkiisuna waxa u qaybtamaa laba qaybood ba qaybtamtaa. labadaa qaybood qayb waxa weeye arday soo jeeda oo cashirkii u soo jeeda oo u firfircoon oo cashirkii jecel oo cashirkii doonaya ay niyadiisa ay ku jirto. ardayna waxa weeye arday dabada laga riixayo oo dameeridhaan raacday oo kale ah. ta saddexaad haddii aan u galo waxa weeyaan ardaygu qaabku wax u fahmayo. ardaydu qaabkay wax u fahmayaan waxaa loo qaybiyaa afar qaybood baan u jeedaa. qaabka u horeeya waxa weeyaan arday wixii uu arkayo ayuu fahmayaa. marka uu macallinku wax macnaynayo, hadduu taablooga wax xariiqo oo wax qorqoro uu arko uu fahmayaa. ardayna waxa weeyaan waa arday dhegta wax ku fahmaya oo markuu macallinku cashirka macnaynayo dhegta ka fahmaya, sidaa wax ku fahmaya. ardayna waxa weeyaan waa arday akhriska wax ku fahmaya. ardayna waxa weeyaan ardayga ugu fiican waa ardaygan afraad oo ardayga ah inta qaybood buu wax ku fahmaya. hadduu wax maqlana fahmaya, hadduu arkana fahmaya, hadduu wax akhriyana fahmaya. dabcan haddaan isla fahanay si guud inta qaabood ama inta noocyada u kala kacan ardaydu, tagu xigta waxay tahay dhinacay u imataa ardayga dhiirigelinta oo qofku ku socdo, dhaqaajinaya, hore u soconaya, doonaya hiigsi dheer sameynaya, dhinacay u yimaadiin si guud. dhiirigelinta ardaygu saddex meelood bay uga timaadaa. mid waa guriga oo waalidkiisa, midna waa iskuulka gaar ahaan macallinka, midna waa ardayga shakhsiyadiisa dhamba ayay ka timaadaa dhiirigelintu. haddii aan isdul taago waalidku waxa weeyaan waa muftaaxa ugu horeeya ee ilmaha dhaqaajinaya, ku dhiirigelinaya inuu wax barto, juhdi gelinaya, markuu imaado dareemaya inuu ilmihii cashir ku maqnaa cashir dareensiinaya. marka waalidku wuxuu had iyo jeer yahay muftaaxa ilmaha dhaqaajinaya, amba sida wanaagsan u dhaqaajinaya amba dhaka xun u dhaqaajinaya. ta xigta iskuulku wuxuu yahay ta labaad ee soo dhaqaajinaya shakhsiga. kow, wuxuu iskuulku dhaqaajinayaa maskaxda ardayga. laba, wuxuu dhaqaajinayaa dhiirigelin, isagan dhan dib u dhiirigelinayaa. haddii aan qiso yaroo gaaban aan soo qaato, waxaa jiray arday shanaad dhiganayey. ka shanaad marka uu dhiganayey ardayga wuxuu ahaa ardayga galaaska ugu liitu ahaa. macalimaddu way ku jeesi jirtay. marka waxay u arki jirtay arday aan cashir aan dhiganayn, cashir aan niyad u hayn, imtixaankiisa dhibcaha ugu hooseeya qaadan jiray. marka ay macalimaddu ay imtixaankiisa ay saxayso, waxay ku nasan jirtay oo qalin casaana ayay dhex dhigi jirtay. marka maalin maalmaha ka mid a macalimaddu waxay ka tiri ardaydii bay ka tiri waana jecelahay ilaa isaga mooye.
marka ardayga isba u saartay waayo ardaygan waxa uu ahaa arday ay macalimaddu ay nacday ay ka daashay ayna naf u ahaynba ayuu ahaa ardaygaas sidaa uu yahay macalimaddu si ay moodaysay muuna ahayn ee ardayga waxyaabaha qaarkood baa soo food saaray ahayd maalmaha ka mid a macalimadii baa laga yidhi ardayda waraaquhuga baadh baa laga yidhi waraaqadihii baa loo dhiibay waraaqadii ardaygii markii ay soo gaadhay ayay akhrisay waxay aragtay ardaygii oo galaaskii koowaad markuu joogay xariif ahaa ardayda dhex joogay ardaydu asxaab la ahaa firfircawnaa dhibco fiican keeni jiray galaaskii labaad sidiisi la-eg marka ay timiday ardaygii galaaskii saddexaad marka uu dhiganayey ayay aragtay waraaqad yar oo meel ku qoran oo sheegtay oo odhanaysa ardaygan arday fiican buu ahaa laakiin dhimashadii hooyadii ayaa saamaysay oo ka yeeshay arday maskaxdiisu isbedelay arday noloshiisu ay isbedeshay arday duruufo waaweyn ay soo furud saareen way dhaaftay galaaskii afraad bay egtay waa ardaygii oo sii liidanaya galaaskii shanaad marka ay joogto ayay ardaygii u dhigaysay fiirisay ay istidhi ardaygan arday xunun wahayne adiga ayaa saamayn ku yeelan lahaa oo dib u soo celin karayey marka waxay samaysay ardaygii bay ka tiri isdeji way dhiirigelisay maalmaha ka mida waxay ahayd macalimadda dhalashadeedii bay ahayd marka waxay samaysay macalimadaas ardaydii bay ka codsatay inay u keenaan hadiyado marka ardaygu waxa uu sameeyey cadar yar oo ka hadhay hooyadii iyo silsilad yar oo ka hadhay hooyadii ayuu soo qaaday marka macalimadii marka ay galaaskii ay soo gashay ayay ka tiri nin walba hadiyadiisa ha keeno ardaydii oo dhan ayaa hadiyaddii keenay laakiin ardaygii yaray tiidhi waxa uu ku keenay hadiyaddiisii bac dukaanka laga soo qaado ayuu ku keenay hadiyaddiisii waayo duruuftiisa ayaa intan ahayd markuu ardaygii keenay waxay tiri ardaydii oo dhan ayaa ku qosashay hadiyaddiisii waayo waxay ku qoslayeen qaabka uu hadiyadda ugu keenay shaygan uu ku keenay hadiyadda laakiin macalimadda waxay ka tiri isdejiya waxay ka tiri hadiyaddan uu tiidhi keenay waa hadiyadaha la keenay hadiyadda ugu fiican way qaaday cadarkiiba isku buuxisay waxay xidhatay siliskiibay xidhatay marka ay xidhatay kadib markii galaaskii la baxay tiidhi waxaa ku sugayay macalimadda albaabka oo ku sugayey marka erey macaan buu ka yidhi maanta cadarka aad marsan tahay wuxuu urayaa sida cadarkii hooyadii ayuu ka yidhi markaabay oyday ay fadhaysatay ay ka tiri waad mahadsan tahay adiga ayaa iga yeelay macalimadda ugu fiicneed say nolosha ay si u socotaba waxaa ardaygii dhiirigelintiisa u soo laamatay macalimadii haddeed ardaydii kale in ka badan ayay siinaysay muhiimadda marka ardaygii maskaxdiisi baa refreshment soo qaadatay oo maskaxdiisi baa dib u soo laamatay arday xariifu dib ugu soo laamay say noloshu ay u socotaba ardaygii jaamacad buu galay medicine buu galay wuu ka soo baxay markii uu qalinjabinayey ayuu invitation usoo diray macalimadiisi invitationki markay akhrisay ayay yaabtay way nilmaysay way tagtay markaabay ka tiri eri fiican ka tiri macalimad fiican inaan noqdo adiga ayaa sababi ahaa taasina waa saameynta ay ku leedahay macalinku ama macalimaddu ay ku leeyahay ardayga xigta waa ardayga shakhsiyaddiisa ardayga laftarkiisa shakhsiyaddiisan isagan dhan wuu isbedeli karaa duruufaha gagaaraysanoo dhan markuu arko wuu isbedeli karaa waxaa jiray arday yaroo masaariya ardaygaas labadiisa waalid way kala tegeen waalidkiisa hooyadii baa ku dadaali jirtay laakiin aabihii uu caayi jiray saaqid baa tahay buu ku odhan jiray moraal jebinayey wuxuu ku odhan jiray intaa wax baranaysid dhulka iska shaqayso noloshaada kala soo saar iyuu ku odhan jiray laakiin hooyadii dhabarkay ku qaadatay way dhiirigelisay marka waalidkiisii labadii waalid marka ay kala tegeen odaygii meesha booskiisii uu ka baxay aabbihii booskiisii uu ka baxay laakiin hooyadii baa istaagtay booskii aabbanimo iyo hooyanimo isku taagtay ardaygan waxa uu samayn jiray hooyadiina waa caawin jiray casharkana intuu kasoo gaari karay ayuu kasoo gaari jiray marka ardaygaas waxaa soo food saartay duruuf adag laakiin duruuftii kama yeelin arday isdhiiba ardayda kayrkiisa waxay dhigan jireen kuurar bay casharay dhigan jireen galabtiiba cashar dhigan jireen habeenkiiba casharo dheeraada dhigan jireen laakiin isagu duruufta ayay u saamixeed inuu wax dhigto meesha uu ka shaqaynayo ayuu wax ku dhigan jiray meesha waalidkiisa ka caawinayo ayuu wax ku dhigan jiray
meesha siyaabo walba ay ugu suura gasho ayuu wax ku baran jiray. Marka ardaygaas wuxuu noqday ardaydii ugu dhibca sarreysay sanadkii, oo waxa uu keenay 8.9% ayuu keenay. Ardayga maxaa ka yeelay? wixii naftiisa ku jiray, motivationkii ku jiray, dhiirigelintii naftiisa ku jirtay ayaa ka yeeshay arday soo baxa oo dhibco wanaagsan qaata. waa mahadsan tahay. haddaba haddaan isla fahanay si guud ilaha dhiirigelinta ee ardayga, kuwaasoo ah oo ugu yimaadiin qaybta waalidka, qaybta macalinka iyo qaybta duruufaha ku meegaarsan, kuwaa ka qayb qaata inuu ardaygu dhiirigelin helo. iminka waxaan ugu gudbaynaa su-aasha ah sifooyinka lagu garto ardayga wanaagsan, ardayga xariifka ee ka dhex muuqda ardayda kale. bal Cusmaanoo kuwa ay maxay yihiin? ardayga wanaagsan amba ardayga xariifka waxa uu leeyahay sifooyin badan. hadda halkan waxaa ku soo koobayaa inta ugu muhiimsan. kow, ardayga wanaagsan waxa uu leeyahay meel ballaadhan ayuu leeyahay tacliinta. meel ballaadhan markaan ku leeyahay, meel dhula lagama hadlayo, meel cira lagama hadlayo, laakiin waxa uu siinayaa tacliintii buu siinayaa, waqti buu siinayaa, tacliintii buu siinayaa, dadaal buu siinayaa, tacliintii buu siinayaa, maal buu siinayaa. marka tacliintiisii waa mid u heegan oo isku agaaradiisoo dhan ka yeelaya mid tacliini ay ku agaarsan tahay oo dhan. talabaad waxa weeye ardayga xariifkii waa arday dadaal badan. ardayga xariifkii ma aha arday sugaya nasiibun, laakiin waa arday dadaalaya. saddexaad, ardayga wanaagsan waxa uu leeyahay cilaaqaad fiican buu leeyahay macallimiintiisa, ama macallimiinta inta ugu badan buu cilaaqaad wanaagsan la yeelanayaa. marka cilaaqaadka ardaygu macalinka waxa ay ka caawinaysaa in ardaygu macalinka uu ka helo waxyaabo badan oo ah tacliin ah, waxyaabo badan oo nolosha ah, waxyaabo badan oo dhiirigelin ah, waxyaabo badan oo ka yeelaya qofkan qof soo baxay, oo in u soo baxday qaranka, amba in iskuulka u soo baxday, amba in ummadda u soo baxdo. taxigtaan waxa weeye ardayga xariifkii amba ardayga wanaagsani waa arday cashirkiisa aanan ka maqnaan. maaha arday maalin imanaya maalinna maqnaanaya. maaha arday ay waxyaabo kale tacliintiisa ay ka mashquulinayso. tashanaad waxa weeye arday soo jeeda xilliga uu macalinku wax dhigayo. maaha arday iska seexanaya, maaha arday ku dhex shaantiinaya galaaska, maaha arday islaamdu ku dhex ciyaaraya galaaska, maaha arday macalinka buuqinaya, laakiin waa arday soo jeeda oo cashirka macalinka hadba xagguu socdo la socda. taxigta waxa weeye ardayga wanaagsan waxa weeye arday muraajacaynaya wixii uu maanta soo dhigtay. maantuu soo dhigtay cashirkan, wuxuu isleeyahay ardaygan maanta maxaa soo dhigtay, maxaa iga maqan. kuwaas waa su-aalaha uu ardayga xariifku isweydiiyo. haddii aan dhibicda toddobaad amba qaybta toddobaad aan u dhaafo, ardayga xariifkii waa arday dulqaad leh. waxyaabo walba soo food saara uma dhaafay tacliintiisa buu had iyo jeer heegan u yahay. waxyaabo kastoo soo food saarana uu dulqaadanaya. ardayga wanaagsan amba ardayga xariifkii waxa weeye arday agagaaradiisa ay uga muuqdaan ardayda sidiisa oo kale ah, amba ardayda ka xariifsan, amba ardayda la maskaxda ah isku agagaaranaya. maaha arday cid walba oo u timaada iskala soconaya, iskala saaxiibaya. dhibicda sagaalaad waxa weeye ardayga wanaagsan xariifkii waa arday qiimeynaya khaladaadkiisa. meesha uu ku fiican yahayna qiimeynaya, oo khaladaadkiisa aan u arkayn khaladaad ay dadka ka galeen, oo u arkaya khaladaad uu naftiisa uu ka galay, khaladaad uu tacliintiisa ka galay. hadduu khaldamana is odhanaya waan khaldamay, laakiin khaladkaygan maanta seen u saxa isweydiinaya, fikirkiisa gelinaya. ardayga xariifki waxa weeyaan arday qaacidadan la dhaho af ingiriiska SWOT. qaacidada SWOT waxay tahay strength, weakness, opportunity, threats. haddii aan sii macnay strength waxa weeyaan meesha uu ku fiican yahay qofku, meesha uu ku fiican yahay buu eegayaa, meesha wuxuu isku dayayaa meesha inuu sii xoojiyo. weakness buu eegayaa, weakness waxa weeyaan meelaha uu daciifka ka yahay ardaygu, meelaha uu eegayaa, meeshan buu odhanayaa meeshan baan daciifka sideen wax celiyaa. opportunitiskiisu eegayaa waa fursadiisa, wuxuu eegayo maxaa fursada haystaa. fursaddu markuu arko fursadda had iyo jeer wuxuu ku dadaalayaa inta ugu badan inuu ka faa'iidaysto fursadda, amba intay awoodiisu ay tahay. treats waxyaabaha soo food saaraya, waxyaabahan hadidaya naftiisa ayuu eegayaa. marka taasina wuxuu ka baaraandegayaa oo wuxuu fikirayaa oo odhanayaa shaygan anigu soo food saari doonaay siin uga hortagaa, daafac buu kasii samaysanayaa. 11aad haddaan gaadho
ardayga xariifkii waxa weeyaan arday maskaxdiisa tababara waxyaabaha maskaxda lagu tababaro ciyaaraha maskaxda lagu tababaro su'aalaha maskaxda lagu tababaro cashirada maskaxda lagu tababaro waxyaabaha oo dhan ayuu ku dadaalayaa ta 12aad ardayga wanaagsan waxa uu leeyahay jadwal maalmeed wanaagsan buu leeyahay subaxii wax wanaagsan buu ku bilaabayaa duhurkii wax wanaagsan buu samaynayaa habeenkii intuu saxo waxyaabo wanaagsan buu samaynayaa waxyaabaha uu samaynayo maanta beritoole noloshiisa ayay bedelaysaa waxyaabaha beri sameeyo saan dambe ayay bedelaysaa noloshiisa si isdaba socda ayay wanaagsanaanaysaa ardayga xariifka waxa weeyaan waa arday wuxuu soo dhigtay ka yar samaynaya wax yar soo koobanaya meel yar kusoo koobanaya say maskaxdiisa uga baxsan meel yar kusoo koobanaya waraqad yar kusoo koobanaya meel buug yar kusoo koobanaya meel dhinac yar wax kaga qoranaya adu waxyaabo yaro dee tafaasiil yaroo dheerdheeraada meela kaga qoranaya ardayga wanaagsan ama ardayga xariifkii waxa weeyaan arday hadaf leh ay meel wax uga muuqdaan marka hadafkiisan ayuu eeganaya waxa uu leeyahay hadafkaa baan leeyahay hadafkaagii hormaan gaadhaa sidaan u gaadhaa maxaan ku gaadhaa xilligeen gaadhaa wuxuu isweydiinayaa hadafkiisa iyo had iyo jeer isweydiinaya ardayga xariifka waxa weeyaan arday walaalihii caawinaya walaalihiisa iskoolka la jooga caawinaya walaalihiisa xaafadda jooga ee ka hooseeya ka level hooseeya caawinaya marka caawimaaddu waxay ka saacidaysaa ardaygan inuu isagii dhannaa dadka kale caawimaad ka helo inuu macalinkiisa caawimaad ka helo inuu dhinaca ilaahay caawimaad ka helo hadba intaad walaalka caawishid iyo adigana lagu caawinaya ardayga wanaagsan waxa uu muhiimad siinaya dhibcahan u qaatay dhibcahan maanta keenay maanta ma dhibic hooseeya ma dhibcaygu ma dhexaad bayihiin ma dhibca sarreeya xaggii aan doonayay ma gaadhay higsigii aan lahaa ma gaadhay dhibcihiisan buu u arkayaa waxyaabo ka turjumaya natiijadii uu gaadhay waxyaabo ka turjumaya balaagiisii inuu socsanaa waxyaabo ka turjumaya higsigiisii uu lahaa inuu gaadhay ardayga xariifka waa ardaygiya waxyaabo jadiida soo saaraya waxay fikra jadiidu keenayaa maye shay jadiidu keenayaa marka sidaas daraaddeed ardayga xariifkii had iyo jeer waa arday u soo jeeda inuu wax cusub soo biiriyo waa mahadsan tahay saa noogu faahfaahisay ama noogu falanqaysay su-aashii ahayd inka lagu garto ardayga wanaagsan ama ardayga xariifka ah waxaan soo gaarnay gebagabihii mawduuciina maanta ah su-aasha ugu dambaysa waxay tahay ardayga maxaa dhaawaca sidii uu lahaa ka burburiya iyo qaabka uga bixi karo dhammaan saamaynta xun ee ka hor istaagtay higsi uu lahaa iyo himiladii weyneed ee ku weyneyd ee qalbigiis ka dhex guuxaysay dhaawacyaashaas waxa ay ka yimaadiin 4 meelood mid waa meel cashirkiisa ah mid waxa weeyaan faamilkiisa midna waxa weeyaan shakhsiyadiisa midna waxa uu kala kulmaa iskoolka ayuu kala kulmaa kow haddii aan istaago ardayda la dhigata galaaska dhaawacyada uga iman kara ardayda qaarkood ayaa xaasidi karaa ardayda qaarkood ayaa tacaamulka habdhaqanka ay ula dhaqmayeen bedeli karaa ardayda qaarkood ayaa ku xaasidi kara dhibcahan uu keenay markaas ardaygan marka ardaygii la gooyo lala hadli waayo ardaygii isdoo saaro marka ardaygii waxa uu dareemayaa qaab mooraal jab oo kale waxay ka yeelaysaa mid higsigiisii iyo himadiisii daciifin karta ta xigta waxaa soo food saari kara problem dhinaca qoyskiisa ah problemka uu noqon kara problem waalidada ka dhexdhaca problemka uu noqon kara problem maaliyadeed ah problemka uu noqon kara isfahan isaga iyo waalidadiisa dhex yimaada ta saddexaad waxa weeyaan iskuulkiisa oo iskuulka marka laga hadlayo waa macalinkii iyo managerkii amba maamulihii iskuulka macalinku oo ku xumaada ardaygii amba managerkii oo ardaygan u arka arday aan munaasib ahayn waxyaabaha qaarkood u diida ardaygan inuu gaadho ta u dambaysa waxa weeyaan shakhsiyadiisan ayay problem uga iman karaan kirkiisa ayaa isbedeli karaa amba cilaaqaad aan munaasib ahayn ayuu yeelan karaa amba uu mooraal jabayaa amba waxaa ku imanaysa waktiga ayaa ku ciriiraya amba waxaa ku dhaci karaa enerjigiisa amba awooddiisa tamartiisa ayaa daciifi kartaa waxyaabaha oo dhan qofka himiladiisa iyo higsigiisa ayay ku ciyaari karaan laakiin haddana wax walba waxa uu leeyahay wax lagu xaliyo marka ardayga xariifka waxyaabahan soo food saara sidee buu u xallin karaa kow haddii aan u imaado dhinaca ardayda la dhigata cashirka waxa wanaagsan inuu had iyo jeer ardayda inta ugu fiican uu ka dhex xusho had iyo jeer inuu ardayda uu u noqdo dhiirigelin maaha waxyaabaha ay la damacsan yihiin inuu u yeelo laakiin had iyo jeer waa inuu noqdaa mid u hogaamiya ardaydan ilaa iyo dhinaca sare
ilaa iyo dhibcaha sare ilaa iyo dhiirigelin. markaas ardaydii in badan uu saameyn karaa oo uu bedeli karaa. marka waxay saameyntoodii xunaa ay la maaganayeen ayaa isku bedeli kartaa saameyn wanaagsan. ta xigta family problemska amba qoyska problemada kasoo waajahi karta ardaygu waxa uu had iyo jeer looga baahan yahay xagga inuu dulqaad muujiyo, waayo xaggan waxyaabaha uu ka bedeli karo waalidada way adag tahay. markaas taasina had iyo jeerna ardaygu waa inuu himiladiisa higsiisa eegtaa. qoyskan problemadiisa marka ay qoys la joogo problemadiisa uu ardaygu u arki karaa, laakiin marka uu iskool la joogo waxa loo baahan yahay had iyo jeer problemada qoyska ka dhex dhaca inuu iskuulka u soo qaadin, maskaxdiisa uu yidhaahdo tan waa qoys, waa wax gaara, markaas oo xaggaa uu ku daysto. xigta macalinka problemada kala hor iman karta macalinka problemadu kala kulmi karo, waxyaabaha uu ku xalin karo macalinkan inuu ardaygu u dhowaado, macalinkan inuu ardaygu la saaxiibo, macalinka waxyaabaha uu rabo dhan inuu ardaygu hore uga geeyo. macalin jecel ma jiro arday aan waxba keenin, macalin jecel ma jiro arday aan shaqaysanin, macalin jecel ma jiro arday muxuu ahaa daciifa. macalimiintu intoo badan waxa ay jecel 90% haddii aan odhanay 99 waxa ay jecel yihiin ardayga soo jeeda. marka ardaygu hadduu noqdo arday soo jeeda oo himiladiisa higsiisa eeganaya, macalinku ma dhici doono. marka xiriirka macalinkiisa hadduu wanaajiyo waxa uu noqonayaa arday wanaagsan. waxyaabaha buuqa ka dhaca iskuulka inuu ardaygu uu si dhex galgalo waa laga wanaagsan yahay, waayo taasina waxa ay yeelaysaa in uu maamulayaashii ay yidhaahdeen ma adigoo sidana ayaa buuqa ardayda warkacaya, ma adigoo sidana ayaa waxaan samaynaya. marka ardaydu saameynta ay iskuulka ku leeyihiin uu kala duwan yahay. ardayga wanaagsan iyo ardayga aan wanaagsanayn waxyaabaha ay kala sameeyeen si midaata looma wada arko. ta u dambeysa ardaygu problemada ka yimaada ama dhibaatooyinka ka yimaada isagana fahanintiisa waxaa ka mid ah inuu dhiirigelintiisu ay daciifto. had iyo jeer marka ay dhiirigelintiisu amba firfircaawnidiisu ay daciifto waa inuu arkaa xageen hiigsanayey, xageen joogaa, intee ii dhiman. marka uu qiyaaso taasi waxay ka yeelaysaa mid dhaqaaqa ilaa hiigsigiisii u eeganayey. cilaaqaadka xunna inuu iska soo xidho ayaa had iyo jeer u wanaagsan. waqtigu hadduu ku yar yahay, waqtiga firaaqada uu haysto inuu ardaygu dadaalo. wax mucjiza nolosha ma jirto, laakiin wax walba waxa u baahan tahay dhiirigelin. mucjizooyinku taas waa tuu xagga minallah ka imanaysa, laakiin arday walba waxa looga baahan yahay dadaalkiisa iyo dhiirigelintiisa. waa mahadsan tahay Cusmaan. waxaa soo gaarnay gebagabihii mawduuciini maanta ahaa. intaan soo xidhin mawduuca maxaad ardayda waana siin lahayd? run ahaantii arday walba xariif noqon karaa, laakiin waxyaabaha qaarkood ayaa looga baahan yahay. ardaygu siduu xariif ku noqon karaa? ardaygu xariif ku noqon karaa waxan inay ka go'an tahay, shakhsiyadiisa ay ka go'an tahay. uu sheegan inaan waan noqonayaa, waan noqon karaa, waan rabaa inuu ardaygu yidhaahdo. xigta inuu xiriir fiican ula yeesho macalimiintiisa. macalin walba macalinka ugu xiriir fiican la yeelo, macalinka ugu fiicanna xiriir fiican la yeelo. xiriirada waxay ka saacidayaan inuu macalinkan isaganaba uu ku saacido. saddexaad waa inuu waqtigiisa cashir geliyo. waqtiga cashirka lagu geliyo, waqtiga cashirka lagu guda jiro oo cashirka uu la socdo. waqtiga cashir loo dhigo oo cashirkiisa uu ka shaqeeyo.